kulankan oo looga hadlayay isdhexgalka bulshada iyo laamaha ammaanka ayaa diiradda lagu saaray sida ugu haboon ee ay u wada shaqeyn karaan ciidamada ammaanka iyo shacabka ayaa lagu qabtay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada jiifafka laamaha ay ka kooban tahay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadda iyo Marwe Jawaahir Maxamed oo ka mid ah mas'uuliyiinta dhinaca ammaanka ee xaafadda Islii oo warbaahinta la hadlay kadib kulanka ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada booliska wadanka. Huu mkutano kuletwa pamoja na kikundi cha Scofield wametumia pesa nyingi sana, na madhumuni yake ni kuwajulisha ya kwamba mukae pamoja, kabila zote za Kenya. Biashara zetu zinaendelea vizuri, tunaishi pamoja tukiwa watu kutoka tabaka mbalimbali, na umoja wetu mkumbuke ndio utatuleta pamoja. waxaan ahay mas'uulka xaafaddan Islii Jawaahir Balidhaha. maanta waxaan qabanaynaa isdhexgalka bulshada iyo booliska. mar walba waxaad ogaataan booliska inuu wax u nihayo maxaa yeelay anaga markaad habeenkii guriga hortaysan dadka ammaankiina sugaayo waa anaga ilaa haddii boolis hal maan uu ka fariisto oo xaafadda ku nool oo ammaan u jirno boolis uu ka fariisto kale ammaan ma jiraayo tuugadu way soo bixi leed oo wax way dhici leed. marka maanta waxaan suubinaynaa isdhexgalka bulshada iyo booliska. waxaad ogaataa booliska lagu sheegayo boolis hooyaa dhashay waa waalid waa nin mise waa naag la qabo mise waa abaay mise waa walaal. marka wixii la dhigi jiray boolis xoog bay isticmaalayaan hadda ma jirto. constitution kugu bedelme boolis waa dad lala hadli karo lala fariisan karo. marka isdhexgalkaas aan wadnaa bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu sheegayaa oo aad aan u jeclo dadkayga ah boolis inuu cadow ahayn oo aan isdhexgali karo. wixii dhibaato jiran xafiiskayga waa ka dhabarku nagu haya ha noola imaado ha noola sheego. haddaad qofka la hadli karin oo luqadiisa aad garanaynin aniga Soomaaliyan af Soomaaliyan ku hadlaa qof muslim ah iimaw ii sheeg wixii ku haysto markaasna waxaan ku qaban karnaa. kulanka maanta wuxuu ku saabsanaa inaan bulshada ka wacyigelino xagga amniga saa la socotaan maalmihiin la soo dhaafay wixii ka dhacay wadanka Nairobi xaafadan Westland inaan bulshada baraarujino ka wada hadalana mas'uuliyadna saaran inaan bulshada wacyigelino aan xasuusino amniga inaan anagoo dhan una quseeyo qof walbana ay mas'uuliyad ka saaran tahay inuu ka qayb qaato. laamaha amnigana ay yihiin dad anaga aan qornay dad anaga aan mishaarka siino cashuurta anagana laga qaado oo dawladda siino ay mishaar u qaataan ay mas'uuliyad saaran tahay in ayaga amniga sugaan annagana aan la shaqeyno ay mas'uuliyad naga saaran tahay sidaan amniga ugu wada shaqeyn lahayn. muhiimadda maanta shirka ku saabsanaa intaas aad inaan dadka ka wacyigelino dadka xunna aan laamaha amniga ogeysiino nambaro oo dawladda ay soo saartay oo lacag la'aan ah qofkii wax arka ama wax sheegi rabana uu waco xaafaddana uusan ka jirin wax bandow ah. Sada Abdi Taliil, Universal TV, Nairobi.